bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka xiliyadan oo kale ayaad daawataa maracadda show barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa macluumaadkii ugu dambeeyey gacan ku-dhigista magaalooyinka waaweyn oo ay ciidamada dowladda federaalka etoobiya gacanta ay ku dhigeen 24kii saac ee lasoo dhaafay guuldarrooyinka isdabajoogga ah ee gaaray ciidamada jabhadda t p lf deegaanaday ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo wararkii ugu dambeeyey etoobiya ayaan ku eegi doonnaa falanqaynta iyo waraysyo ku saabsan maxay ka dhigan tahay jabhadda t p lf in ay weyso gacankuhaynta magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka etoobiya qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin xiisadda cusub ee ruushka iyo maraykanka iyo diblomaasiyiinta maraykanka oo loogu baaqi deg deg inay kaga baxaan magaalada moscow iyo wadahadalka dhex mara madaxweynaha turkiga iyo madaxweynaha ruushka kuna saabsan arrinta dalka ukraine ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa kusoo dhowo mar kale maracadda show kadhib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsan tahay intaanan etoobiya arrimaheeda eegin iyo waraysiyada kala duwan waxaan ku hormaraynaa xiisadda dhanka diblomaasiyadda ee u dhexaysa ruushka iyo maraykanka ayaa cirkays ku sii shareertay aad ayayna u qaraaraatay maalmoon kadib markii mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan labada dowladood ay warbaahinta isu mariyeen hadalla kulul iyadoo sidoo kalena la filaya inay kulamo yeeshaan mas-uuliyiin ka tirsan labada dowladood ee maraykanka iyo ruushka laakiin hadda xukuumadda moscow ayaa amar waxay ku soo saartay diblomaasiyiinta maraykanka inay isaga baxaan magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka afhayeenad u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda raashka maria zakharovo ayaa waxay shaacay ka qaaday in safaaradda maraykanka ee magaalada moscow iyo shaqaalahooda looga baahan yahay in ay isaga baxaan gudaha dalkaasi ilaa 31 bisha January guryahooda inay dib ugu laabtaan ayaa lagu warramaya in la soo saaray amarkaasi oo ka yimid wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka safiirka dowladda ruushka ee dalka maraykankana waxaa dhankiisa uu sheegay in 27 diblomaasiyiin u dhashay dalka raashka iyo qoyskoodaba ay dalkooda dib ugu soo laabanayaan sidoo hadalka u dhigay in calaaqaadka diblomaasiyadeed ee kala rartaan labada dowladood ayaa waxay ka dambeysay kadib xiisadda sii kordhaysa ee gudaha dalkaasi Ukraine wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaasi Ukraine Dmytro Kuleba ayaa dhankiisa waxa uu shaacu ka qaaday in codsi ay u direen wadamada gaashaanbuurta NATO gaar ahaan kulankii ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda kaasi oo 2 maalmood ka dhacay magaalada Latvia waxaana ka dalbanay buu yiri in ay isbahaysigaasi ay taageero u muujiyaan dowladda Ukraine xiisadda dalka Ukraine ka taagan ayaa waxa si aad u sii buunbuuninaya dowladda Maraykanka waxaana lagu warramayaa in iminka ay isqabteen dowladda raashka ruushka ayaa marar badan waxaa lagu tuhmeeyay inuu qorsheynayo weerar ka dhan ah magaalada Kiev ee caasimada dalkaasi Ukraine iyadoo eedeymaha loo jeediyo dowladda ruushka gabi ahaanba ay beeninaysay dhinaca kalena wadahadal dhanka telefoonka ayaa lagu warramayaa inuu dhex maro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha dowladda ruushka Vladimir Putin macluumaadka waxaa intaasi ku darayaan inay ka wada hadleen aragtidooda ku aadan xiisadda ka taagan gudaha dalka Ukraine xiisad adag ayaa ka taagan ruushka ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolka kaga sugan wadamada gaashaanbuurta NATO dhoolatus ayay ka sameynayaan xuduudda ruushka waxaana laga baqayaa in halkaasi isku dhac uu ka dhaco badda madow ayay sidoo kale xiisad ay ka taagan tahay ruushka iyo turkiga way isku wanaagsan yihiin inkastoo ruushka si aad uu kaga carooday diyaaradaha droniska ee Bayraktar TB2 oo dowladda Ukraine hore looga iibiyey waxyaabaha xasaradahaasi ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah 24kii saac ee lasoo dhaafay guuldarrooyin isdabajoog ayaa soo gaaraya ciidamada jabhadda t p lf goobaha ugu badan ee laga qabsadeen waxay ahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Amxaarada dagaalku wuxuu u muuqanayaa weji kale inuu yeelanayo gacan ku dhigista magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan deegaanada dhaca waqooyiga dalka Etoobiyana waxay ka dambeysay kadib markii ciidanka dowladda federaalka Etoobiya guluf colaadeed ay ku qaadeen deegaano dhowr ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda Etoobiya ciidamadii keedka ku jira oo la soo kiciyay iyo ciidamada oo niyad ahaan la sheegay in uu taageeray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana u suura gelisay inay weerar ay ku qaadaan magaalooyin iyo fariisimo dhowr ay ku sugnaayeen ciidanka jabhadda TPLF magaalada Lalipela oo magaalo qadiimi ah si fududna markii hore ay ku qabsadeen jabhadda ayaa hadda gacanta u soo gashay ciidamada ammaanka magaalooyin kale oo dhowr oo ka tirsan gobolka Amxaarada ayaa sidoo kale la qabtay tani waxay ka dhigan tahay in la go'doominayo jabhadda TPLF sidoo kalena gabi ahaanba laga fogeeyo wadooyinka soo galaya magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya si ay ugu dhiiradaan inay magaalada caasimada ay soo weeraraan haddaba maxay ka dhigan tahay guuldarrooyinkii isdabajoogga ah ee maalmihii ugu dambeeyay soo gaaraya jabhadda TPLF maxayse guulahan kaga dhigan tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale maxay tahay culayska iminka Itoobiya ka soo wajahaya dhanka Suudaan iyo dagaalada xuduudda ka dhacaya muxuu yahay qorshaha isdabaaliska ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee dagaalada xuduudda ka dhacaya uu iminka ka sameynayo arrimahaasi arrimo kale oo dhowr ah waxaan ka wareystay ustaad Khalid Muallim oo wax badan ka qora arrimaha Itoobiya wariye hore ahaa sidoo kalena
arrimaha gobolka aad u falanqeeya qadka ayuu si toosa ugu jiraa. Ustaad, marka hore soo dhowow, waxaad nooga warantaa maxay ka dhigan tahay guulihii ugu dambeeyey oo ciidanka federaalka Itoobiya, maxay kaga dhigan tahay ciidanka militariga Itoobiya, maxayse TPLF kaga dhigan tahay? runtii markii laga hadlayo arrinta Ethiopia waxay soo bilaabatay November-tii hore sanadkii 2020 xilligaas oo ciidamada militariga Ethiopia ay qabsadeen magaalada Mekelle oo caasimadda Tigreega. markaasi Tigreega iyo wixii ka harayba waxay galeen buuraha, waxaana la filayay dagaalka inuu halkaasi ku dhamaan doono. laakiin rogaal celin ay sameeyeen kadib July magaaladii dib ay u qabsadeen, kabacdina waxay khalkhal galiyeen ama ay ku dhawaadeen dhowrkii bilood ee la soo dhaafay in ay ka takhalusaan xukuumadda dhexe ee waddanka ka jirto, isla markaana ay qabsadaan magaalada Addis Ababa. wixii xilligaas ka dambeeyay waxaad u malaysaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed in uu u tafaxaytay inuu dagaalka isaga hogaamiyo, isla markaana uu si kama dambaysa ula dagaalo Tigreega iyo dabcan Oromada oo isbahaysanayay. maalmihii ugu dambeysay intii uu furunta tagay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaad u malaysaa in ciidamada Ethiopia ay meelo badan soo ceshteen. waxay xaqiijiyeen wadadii isku xiraysay Djibouti iyo Ethiopia oo dhinaca afarta ahayd oo marka hore khalkhal badan uu ka jiray, lagana cabsi qabay in ay qabsadaan Tigreega si ay sahayda uga jaraan magaalada Addis Ababa. waxaa u malaysaa wadadaas hadda inay ku guulaysteen inay ka fogeeyaan Tigreega, taasoo culays badan ka qaadaysay magaalada Addis Ababa. sidoo kale inta waxay gudaha u galeen gobolka Cafarta oo magaalooyin badan ka qabsadeen, oo ugu dambeysay magaalada Kafra oo magaalo istiraatiiji ah, isla markaana niyad badan u yeeshay Cafarta. hadda waxaa u malaysaa in gobolka Amxaarada horey loo sii galay, isla markaana hadda ay ciidamada federaalka ah ay meelo badan soo ceshanayaan. runtii waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in ciidamada kaydka ah dib loogu yeeray. sidoo kale inta waxyaabaha guulaha sababi kara waxaa ka mid ah in ra'iisul wasaarihii naftigiisa uu noqday cidda hadda hogaaminaysa dagaalka si uu ciidamada niyadooda uu u soo celiyo. sidoo kale inta ra'iisul wasaaraha waxaa malaysaa inuu challenge kula jiro wadamo badan oo caalamka oo ay reer galbeedka ugu horeeyaan, oo mar walba ku celcelin jiray in Addis Ababa inay dhacdo laga yaabo, bilaabayna wadahadalkaasoo mararka qaar gaaray heer ra'iisul wasaaraha inuu iscasilo oo waddanka uu badbaadiyo. arrintaas waxaa u malaysaa inuu ka dhaga adeegay uuna ka doorbiday inuu dagaalamo. maalmihii ugu dambeeyeyna guulo isdaba jooga ayuu gaarayay. waxaa jirtay duqayn ay sameynayaan ciidamada cirka Ethiopia oo naftigooda si kama dambaysa dagaalku ugu soo biiray, duqayntaasoo keentay in ay hakiso horumarka ay sameynayeen ciidamada Tigreega maalmihii la soo dhaafay. marka hadda maxay uga dhigan tahay guulahan ciidanka dowladda Ethiopia, maxayse TPLF uga dhigan tahay? ciidanka Ethiopia waxay kaga dhigan tahay xataa haddii wadahadal la galayo inay galaan wadahadalka ayagoo strong ah, oo meeshii marka hore ay taagnaayeen meel daciif ah ama weak point ay taagnaayeen, hadda ay strong point taagan yihiin oo wadahadalka ayaga ay garwadeen ka noqonayaan. maanta waxaan Al Jazeera ka akhrinaya in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ka dalbaday Tigreega inay isdhiibaan meeshii bil ka hor laga hadlayay in Addis Ababa ay isdhiibto. waxaa u malaysaa hadda in miisaankii uu dhinaca kale intuu u wareegay, taasina waxay keenaysaa in uu xisaabaadkii hore oo Tigreega ay isku dhufsadeen oo ahaa inay magaalada dib u qabsan karaan Addis Ababa ama xukunka ay dib ula soo wareegi karaan, in xisaabaadkii ay naftigeeda ay wax badan maxaa la yidhahdaa calculationka markii hore la sameeyey inay wax badan ka qaldamaan. hadda aniga fikirkeyga waxaan isleeyahay Tigreega waxay ku qasbanaan doonaan in ay wadahadal galaan, wixii u go'i karaan ay halkaasi ka qaataan wadahadalkaasi. waa gartay. marka la eego Suudaan, dagaalla ayaa ka soo cusboonaaday xuduudda gobolka Alfashaqa oo labada dhinac ay wadaagaan. maxay Abiy Ahmed dagaalladaasi kaga dhigan yihiin? maxayse tahay waxa hadda ku soo beegay cadaadiska intaasi la eg in Ethiopia looga furo dhanka xuduudda? runtii markii la fiiriyo arrinta Ethiopia way iska wajihi badan tahay. xireenka weyn Abiy Ahmed mar walba uu ku adkeysanayay in uu dib u kiciyo waxay culays ku haysay wadamada Suudaan iyo Masar oo aad ka warqabto wadan weyn ah markii geopoliticska caalamka laga hadlayo, iyo bariga dhexe iyo wadamada Carabtaba iyo gaar ahaan Afrika. dadka qaar waxay aaminsanayeen in dagaalka ay qayb ka ahaayeen si toos iyo si aan toos ahaynba oo
dadka Tigreega soo hubeynayay ayaga ahaayeen waxaa u malaysaa maalmihii lasoo dhaafay in oo Abiy Ahmed uu culays badan saaray Tigreega oo la arkay in uu rabo inuu ka takhaluso waxaa laga yaabaa inkastoo hadda war rasmi uusan jirin in Suudaan ay rabtay in culays kale ku furto waxay qabsadeen dhul hor leh oo gobolkaas la isku haysto gobolkaas taariikhdiisa markaa fiirisid 120 sano ayuu labada wadanba ay isku haystaan oo qolo walba qolada kale inta ay sheeganaysaa Suudaaniyiinta maanta waxay sheegeen in goobo hor la qabsadeen laakiin markaa dhanka kale fiirisid Abiy Ahmed hadda ma rabo inuu dagaal Suudaan la galo hadda dagaalkiisu wuxuu ku wajahan yahay Tigreega wuxuu rabaa nooc oo reer magaalnimo ah ama isdabaalis oo kale inuu dagaalkaasi kaga gudbo ama meelaha ay sheeganayaan marka ay qabsadeen ka bacdi dagaalka Tigreegan uu ka dhamaado inuu gobolkaasi ama gorgortan ku helo ama dagaal uu ku helo marka waa culays kale intuu soo wajahay haddii uu awoodiisa isugu geeyo inuu dagaalamana waxay wax ka dhimi doontaa dagaalku uu kula jiro Tigreega haddii awoodiisa isugu geeyo in uusan dhagjalo qustiyeen waxa Suudaanta samaynaysana waxay u keeni doontaa in uu marka hore Tigreega dagaalka uu kaga adkaado ka bacdina markaas ka bacdi uu ka fikiro talaabada labaad ee Suudaan wixii uu ka qaadi lahaa aad baad u mahadsantahay Ustaad Khalid Macalin ayuu ahaa oo magaalada Muqdisho ku sugan nala falanqeynaya Ethiopia iyo waxa ka jira barnaamijka Maracadda Show ayaad weli daawanaysaa waad mahadsantahay Ustaad adiga madawna